بسم الله الرحمن الرحيم ماشي waxaan ku soo dhaweynayna gabanaheena Soomaaliyeed Maxamed Cabdi Maxamuud oo gabanaheena la doortay oo saxda ahaa haddana noo soo laabtay ayaan si fiican ugu soo dhaweynaynaa waxaan ugu soo dhaweyn doonaa oo ku dhaweyn doonaa si fiican wajeer hadduu Ilaahay yiraahdo alxamdulillah ilaaha mahad leh ilaahay nabad ku soo celiyay ilaahay nabad ka dhigay ilaahay xaqiisa siiyay aan ku mahadinaynaa haddana asaa hadli doono anigu hadal badan ima furno جال مدح وين جال قبل سودو. مصدر أحمد قادر بوش إيو بريس عشان سوي ماضي جرايدك دوينها هذا ثم سنتين لنا سوق يفشل مانتا بدك على وجود الحفلات دانو حيهن إن دوينها للأي جواه إن الأوجيسية إن الأوجيسينا arrin taariikh oo shalay ka dhacday meesha magaalada la dhahaa Meru ayaan rabnaa wixii ka soo baxay arrinteeda inaan u sheegno dadweynaha arrintaas oo ah waa dogsoontiin 9 bilood ayaa maxkamad ayaan joognay maxkamadaas oo ku saabsan in jagada gabnanimada in laga qaado ayaa la isku dayay arrintii maxkamad baa la keenay shalay alxamdulillah shalay bay dhamaatay waa ku guulaysanay arrintii guul baan ka gaarnay guushaas waxaa iskala dadkii gacan siinayay oo ka mid yihiin reer Wajeer iyo inta kaloo i taageersan nimankii looyarihii ama abukaatayaalka oo maaragtay 9 bilood dagaalka igula jiray waxaa intaas dheer xakiimyaalkii ama judgeski 3 judge oo arrintaas shay taariikh ah ka dhigtay sababtaan ay taariikh u tahay waxaa waaye 6 qodob ayaa lagu haystaa 6 qodob kulli 6dooda waa la tuuray qodobyaha maxaa ka mid ah qodobyaha waxaa ka mid ahay in annaga gabnanimada Wajeer inaan qaadi karin sababtaas oo ah yani waxyaala maamulka countiga inaan maaragtay si xun aanu isticmaalnay ayaa ka mid ah 6 shay kulli waa la wada tuuray taasna markaa ka dambe waxay noqonaysaa halqabsi ay noqonaysaa gabnayaalka sida ani ligu astakay oo kale maxay aniga astakay waxay iska heed siyaasad ay noqotay siyaasad maxaan u leenahay 6 qodob haddii la tuuray waxa waaye macnaha in shay sal iyo aan lahayn iyo raad aan lahayn ay noqdeen taas marka waa siyaasad waana dad siyaasi ayaa ka dambeeyay marka waxay dhashay in reer Wajeer 9 bilood hawshii la qaban lahaa ay dib u dhacdo oo waxaa ka mid ah abaartii weyneed oo soo maray abaartaas doolo badan ayaa dhamaaday dad baa meeshii maaragtay dhib weyn isku gaaray marka weligayn abaar waa arki jiray oo 2019 ba abaar baa jirtay hasa haddii waa dogsoontiin qaybta ani aan ka qaatay abaartayda neef xoolo oo berigaa dhintay ma jirin haddana intaasoo milyan oo neef ayaa dhimatay marka taas marka waxaan u leeyahay reer Wajeer dadka markaa ka dama arrimaha saaqooda siyaas ahaan ruux siyaasad daraaddeed maaragtay ruux jagada ha laga qaada ama gabna ha noqdo amaba ha noqda MCA amaba MP taas oo kale laga fiirsada wixii jira oo runna ha la sheegay gabna feeraha ka dilacay xaqayna baa meel looga dhacay laakiin xaqayga ma dhacay xaqi Wajeer ayaa meel looga dhacay markaan ka dambana bariya dadka siyaasiga inay sugaan waqtiga siyaasadda waqti kale aan siina nafaas oo ku shaqeeyo assalaamu calaykum Axmed Cali Weer waxa uu sheegay inay racfaan ka qaadan doonaan go'aanka maxkamadda Axmed Cali Weer wuxuu sheegay in go'aanka maxkamadda shalay soo saartay inay racfaan ka qaadan doonaan sideed u aragtaa tallaabadaas haday ku dhaqaaqaan isaga iyo kooxdiisa
horta sharci ahaan waa loo ogol yahay inay rufaac ay ka qaataan ama appeal ay u kacaan court of appeal ay u kacaan taas waxa weeye waa yeeli karaa hase ahaatee shaqada ma istaajinayso midda kale oo raadinayaan waxa weeye stay order waxa weeye yani shaqada inay kusii jiraan keeskana uu socdo shalay waa laga diiday madiida midda la ogolaaday waxa weeye handing over ama hawshii 9 bilood shaqadii aad shaqaynay inuu kuu soo wareejiyo xisaab xilmo leh lagu qaado wixii waa in la arko lacagtii iyo maxaa la dhahaa waxyaalihii kala hantida countiga sidii loo isticmaalay waa in la ogaado marka 3 week ama 20 beri ayaa la siiyey taas ma aha stay order ma jirta aniga gabnanimaday waa la cadday inaan aniga gabna aan ahay xafiiskan aan ku noqonaa ninka cali weerar axmed cali weerar isagana deputy nimadiisaas ku noqonaa maxaa laga yeelaa ku-xigeenkiisa baan ku noqonaa isagana xafiiskayga waa ka baxaa xafiiska deputyga baa gala marka ninka kale oo nin kale ku jiro hadda deputyga kaas maxaa laga yeelaa marka ninkaas waxa waaye waa ka baxa hadda lagama hadli kara shaqo raadi gadaal dama ma ogi hadda waxa waaye waa misplace ya waatay maxamed cabdi waxa ma waa la fiirin doonaa laakiin hadda axmed cali mukhtaar baa hadda deputy noqonaa insha Allah maxamed cabdi su'aal kale marka shacabka reer wajeer waxay ku wareersan yihiin in 5 sano soo socoto oo doorashadan hadda ay muddo yar ka harsan tahay inaad tartami doonto in kale maxaa kaga jawaabaysaa su'aasha waxa waaye midaas waxa waaye Allah hadaas cid ma soo ma amiin aniga waa taaganahay reer wajeer intii yareed on shaqay waxa la taaban kara ayaan suubay waxaa ka mid ah marka midnimada wajeer shayga ku daran adduunka waxa waaye nabadgelyo xumada ilaahay baa gacan ilaahay baa maaragtay aan ku mahadinaa nabadgelyo xumo ma jirta qabiilada dagaalamay kulli gacmaha isageli dagoodii iyo ajuuraan dagaalamay dagoodiya dhexdiisa dagaalamay ogaadeen iyo dagoodiya dagaalamay garra iyo dagoodiya dagaalamay wixii markaan 4 sano soo dhaafay waxay noqdeen walaal ay wada noqdeen kulligood taas waa mid labays waxaanu keenay mashruucyaal yar oo dadweynaha looga faa'iideyna mashruucyaalka waaweyn ma kuwa yaryar marka annagoo raacayna devolution ama hantida iyo awoodda dawladda in la geeya ilaa xaafadaha waxaanu bilaabay wax la dhahaa ward based projects 30 ward ayaan qabnaa wardkiiba waxaan siiyaa 25 million 25 million ayaa la siiyaa sanadkiiba lacagada horumarinta tuulooyinka lacagta marka waxa waaye wax loogu talagalay mashruucyaalka yaryar oo biyaha isbitaalka wax yar oo maaragtay ama ward ama wado yar oo meel yar oo la mari karin 1 milyan iyo 500 waxyaalo yaryar oo dadweynaha priority ah ayaan ku qabanay haddana waxaan ku faani karaa in 600 oo mashruuc wajeer county la arkayo maanta ward kasta tagta waxaa lagu tusaa wax kaloo la qabtay ma laha waa dadka waxay ku tusayaan kuwii annaga aan qabanay shaygan waa shay cusuban mandheera ma qabta wajeer ma qabta amiin gaarisa ma qabta iyo meelaha kale kulli ma qabaan haddana bay rabaan inay bilaabaan marka waxyaalahaas ayaanu kowda bisha ayaad xafiis ku noqonaysaa kowda bisha saddexaad xafiis ku noqonaysaa waxyaabaha ugu muhiimsan markaad xafiis ku noqoto is leedahay ahmiyadda ugu horeysan siinaa maxaa ka mid ah horta waxyaalaha ani xafiiska ma aha ilaa sugi maaha ilaa bisha 10keeda bisha soo socota 10keeda sugi maaha ani xafiiskan fariisana deputygana xafiiskiisu fariisana waxaa jiri doona marka guddi xisaab xilma leh subinha ayaa jira oo loo xil saaray arrintiida marka guddigaas ayaa shaqada wada annagana koranka fiirinayna
oo hawsha siday u socoto waa inaan fiirin ma ogi maaha ani inaan sugayo ilaa bisha dambe tobankeeda shaqada siday u socoto idaaro baan maaragtay ay u keenaan xisaab cilmi leh lacagtii la isticmaalay mashruuciyaalka kaloo la dhisay waxyaalihii kale oo la qabtay waxaas kulli intaan ani meesha jooga ayaa la rabaa in aan wax ka ogaano markaan dhamayno insha allah markii la gaaro bisha tobankeeda markaas waxyaalaha weyn oon qaban doono horta mid ugu horreysa waxaa waaye cabinet meeting ayaanu yeeri doonaa insha allah waktigaas ya shaqadii markaas si fiican aanu bilaabayna waa tahay ya waa tahay cabinet marka wixii sidii arrimaha countiga ugu dardaran waa tahay ka mid tahay weliba haddaba abaaraa weli jirta waa hagaag abaarta ma dhammaanin weli waa gartay axmed cabdi iyo su-aasha midnimada inaan xoojino maxaa yeele hadda siyaasadan waxay keentay qolo iyo ciddaanaa iska laheyd iyo ciddaanaa saanahay ciddaanaa boogtay iyo waxaas kulli waa dhammaynayna hal su-aalo ugu dambaysan ku weydiinaa markii horena waa ka jawaabtay laakiin in hadda dadka ku daawanaya toos ugu celisaan rabo ay ku maqlaan doorashada soo socota maxamed cabdi maxaa laga filayaa muxuuna u taagan yahay kursigiisa inaad si fiican ku dhawaaqdo oo dadku u sheegto inaad tartamayso iyo in kale si fiican u caddeeya marka waxaan rabaa inaan ogeysiiyo reer wajeer meel ay joogaanba ama dibadda ha jireen ama wajeer ha joogeen waxaanu sheegahay wajeer county gafnanimo midaan la leeyahay weliba hoos ahaan guddi baa application loo qoranayo ugaasiin baa dadka kala bixinayo aniga weligiisa maba qoran mana rabo inaan qorto sababtoo ah haddaanayba kari lahayn kuwii kaleba soo qorta iyaba kala bixin lahayn marka aniga waxaa waaye reer wajeer oo dhan ayaanu kuro ka rabaa cod aan ka rabaa marka diyaar baan u ahay insha allah sida 2017 liisoo dhisay sida oo kaloo tahay ayaanu rabaa anigana reer wajeer waa ay garanaysiin macallinkiinaan ahaan jiri waxaan ahaan jiri mp baan ahaan jiri wasiir ku-xigeenaan ahaan jiri wasiir baan nahay waxaan nahay haddana ambassador baan ahaan jiri ama danjiraan ahaan jiri marka waa ay garanaan reer wajeer dadkan fatadhugyaalka oo siyaasada dhexda ka wada oo maxamed cabdi madaxi magaca ka hadlayn rabo kuwaas waxaa leenahay iyagana hawl baa u horo dad waxaa jirta ayaga toodaaba haysataba kulligood waxaa waaye reer wajeer bay kuro ka sugayaan marka waxaanu leenahay fadhiiso kaan fiiriyo nin walba wuxuu qabtay miiskaa la soo saara siyaasa xaggaan iska dhigna reer wajeer waa mid aniga markaa midda kale waxaan rabaa inaan xafiis u fidiy nin allahi ninkii dadkii lug ku lahay arrintan iyo dadkii kale oo lug ku lahayn xafiisa iga tahay sababtaan saa u leeyahay maxaa waaye xafiisay saamaxa ay igu wadayiin sababta waxaan saa u leeyahay waxaa waaye ninka gaalka oo la dhahaa South Africa 27 sano la xiray Nelson Mandela waa nin gaal 27 years dadka xiray asaga naftiisa ayuu u fidiyey musaamaxad ya xafiisaas u fidiyey waxaa la siiyey marka dambe bil sharaf baa la siiyey waa nin gaal annagoo hadda muslimiin ah dadka iyo image garayna muslimiin ay ahayeen soo saas ma waa wada saamaxay waxaan u qabo ma laha reer wajeer waxaan qabaa gacantaan wada qabsana aan hilmaanna wixii horo waxaan midoowna maxaa yeele haddaan gadaal u noqono waxaa waaye waxaan maxaa la dhahaa dib u dhac iyo waxyaalaha ku dhacayna marka nin walba waxaan rabnaa walaaleen inaan gacantiisa ayagana waa waasaqateen arrintaan aqliga ka baxay sooma aqliga ka baxay sooma ayna weligeed maaba arkin arrin caynkan oo maaragtay weliba midda ugu weyn waxaa waaye midda aan sheegay oo waxaa waaye hal yastigay bal 6 shay hal uu astigay hataa middo hadii lagu helay waxba maamo 6 waxaa waaye 100% aan helada max ya maxki yani waa garanaysa ruux kasoo baxa ani waa kasoo baxay kulli boqolkiiba boqol